بسم الله مقطع كليب ساوند بايت ama hadallada iyo codadka la soo jarjaray waa muhiim marka loo eego qaabka ay u adeegsato saxaafadda oo ah in lagu soo koobo muhiimadana laga abaaro hadal aad u dheera oo laga yaabo inuu saacado qaadan lahaa in la dhegeysto laakiin waa halis marka loo eego qaabka ay u adeegsadaan dad kamid ah dadka isticmaala baraha bulshada oo ah in la soo jarjaro qof hadalkiis meeshii hore jirtana gadaal la soo mariyo meeshii gadaal jirtana hore la mariyo loona ekaysiiyo in uu ka hadlayo wax ka duwan wixii uu ugu talagalay qofkaasi tusaale ahaan haddii qofkaasi uu yiri digaaga dil ee dadka daa waxaa laga yaabaa in inta la soo jarjaro laga dhigo dadka dil digaaga daa taas oo halis u keeni karta qofkii hadalka yiri iyo waliba dadkii dhageysanay sidoo kale waxaa laga yaabaa in qof taariikh ka hadlayay ama kitaab aqrinayay loo ekaysiiyo in hadalka uu aqrinayo inuu asagu yiri tusaale ahaan hebel waxa uu yiri hebel waa nin xun laga yaabo in laga jaro hebel waxa uu yiri oo kaliya lagu soo koobo hebel waa nin xun haddaba waxaa muhiim ah in aad iska hubeyso waxyaabaha aad ku arkaysid baraha bulshada inta aadan gudbin ama inta aadan qalad u fahmin ama aadan gudbin been waana in aadan rumaysan kalibyada noocaas ah inta aad ka ogaanaysid hadalkii oo dhammaystiran iyo weliba ujeedadii laga lahay waa arrin ay dad badan heli karaan inay hadda ka hor dhacday arrimahaas lamid ah ayna halis gelisay dad sumcadood iyo weliba kalsoonidood laga yaabay in aad hore u aragtay waxyaabo noocaas oo kale ah oo kaa yaabshay markii hore laakiin baaritaan kadib aad ogaatay in aan sidaas loola jeedin kadibna aad ka qanacday